مرحبا يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان. السلام عليكم وانidin salaamay dhamaan walaalaha ku xiran channelka. waxaa fowda in soo saaray dhalashada bisha barakeysan ee Ramadaan, waxaana inaga xiga maalmo yar iyo wad oo kaliya. waxaa inoo dhalan doona bishii maghfirada iyo dambi dhaafka, bishii la laba jibaaray cibaadaadka iyo acmaasha wanaagsan, bishii wallaah inoo soo dejiyay kitaabka la saaray xaqa iyo baadilka sida uu kitaabka laftiisaba inoogu sheegay aayada 184 ee suurada maalin maalmaha kamid ah ayaa nabiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxa uu sii koriyay minbarkii uu ku tukanayay salaada. kadib ayuu wuxuu 3 mar dhahay aamiin. markii ay saxaabadu weydiiyeen wuxuu ku dhahay waxa ay imaado malakul jibriil, wuxuuna yiri 3 waxa ay galayaan naarta ay Allah ku fogeeyo ee waxaad dhahdaa adiguna aamiin. waxaana dhaha aamiin. waxaa 3daas kamid ahaa mid soo gaaray bisha Ramadaan ee aan loogu dambi dhaafin waxa uu galayaa naarta ee Allah ku fogeeyo waxaad dhahdaa aamiin. aniguna waxaan dhahay aamiin. bisha Ramadaan waxaa la furaa dhammaan albaabada jannada, waxaana la xiraa albaabada naarta. sidaas darteed waa inaad lahaataa go'aan, karti iyo geesinimo dhab ah oo aad kaga miro dhaliso kagana faa'iideysato fursadaas 30 ama 29 maalmood ah oo Ilaahay kaaga dhex soocay 12 bilood ee kale ee sanadka ku jira. marka laga soo tago inay bishaani tahay bil cibaado, waxaa dhexdooda ku sugnaada barakooyin badan, waana waqtiga ugu fiican ee uu qofku qaadan karo go'aano dhab ah oo ku aadan adduunkiisa iyo aakhiradiisa labada. 10 maalmood ee ugu horeysa bisha Ramadaan waa dambi dhaaf. haddaba dalab oo ku dadaal inaad Allah weydiisato dambi dhaaf. kelimada astaghfirullah oo aad ku celceliso 10 ugu horeysa bisha Ramadaan ayaa laga yaabaa inay sabab u noqoto in lagu dambi dhaafo lagaana dulqaado buuro culus oo dunuub ah. sidaas darteed ha yareysanina xaqirnad mar walba Allah weydiisata dambi dhaaf. 10ka dhexe ee bisha Ramadaan waa naxariis, waxaana dhulka iyo samadaba xaadir ku ah naxariista Ilaahay oo buuxin doonta qalbiyada adoomadiisa. haddaba adigu ha noqonin miskiin qatani ka ah naxariista iyo nimcooyinka uu Allah u qaybinayo adoomadiisa. 10ka dambe ee bisha Ramadaan iyadana wuxuu Allah naartiisa ka xoreeyaa adoomadiisa ee Allah weydiiso inuu ka mid dhigo dadkaas lagu xoreeyo naarta. waxaa kale ee aan kugula talin lahaa maadaama ay bishaani tahay bishii Qur'aanka inaad caado joogto ah ka dhigato akhrinta Qur'aanka. siiba waxaa sii wanaagsan oo sii fadli badan Qur'aanka la akhriyo waqtiga waa bariga, yacni salaada subax kadib, waayo waxaa xaadir ah malaa'igta. inna qur'aana al-fajri kaana mashhuudan. waxaan rajaynayaa mowduucan inuu wax un ka caawiyay. Ilaahay naga dhigo kuwa bisha Ramadaan loo dambi dhaafo, loo naxariisto, naartana laga koryeelo oo laga xoreeyo. Assalaamu calaykum.